sheekada fiyuuskii noqday sababta geerida. inta aanan bilaabin ka hor aan ku xasuusiyo inaad subscribe dhexdo channelka muuqaalkan aad la gareyso siina share gareyso mahadsanid. Balqiyaas inaad kaamirada shidato waxaad rabtaa hal muuqaal oo keliya, hal muuqaal oo dadka ka yaabiyo, hal muuqaal oo TikTok-ga qarxiya. waxaad raadinaysay fiyuus balse wuxuu isu bedelay dhacdo naxdin leh oo aan dib loo sixi karin. tani ma ahan sheeko filim ah, waa dhacdo dhab ah oo ka dhacday Ireland taasoo maalmahan si weyn looga hadalhayay baraha bulshada. 16 Agoosto 2026 Ireland waxaa ka dhacay shil aad u naxdin badan. 5 wiil oo da'doodu u dhaxaysay 15 ilaa 18 ayaa saarnaa gaari BMW ah oo la xaday. gaari xawaare sare ku socda ayaa galay wadada isagoo si khaldan ugu socda jihadii loogu talagalay. wax yar kadib gaarigii BMW-ga ahaa waxa uu ku dhacay gaari kale oo ay saarnaayeen qoys safar u ahaa aroos. 5 ka mid ah wiilashii gaariga saarnaa ayaa ku dhintay shilka. qoyskii gaariga kale saarnaa qaar waxaa soo gaaray dhaawacyo culus. laakiin su'aasha ugu weyn oo ay dadku isweydiinayaan waxay ahayd maxaa dhalinyaradan ku kalifay inay sameeyaan wax sidan u khatar badan. sida warbixinadu sheegayaan dhalinyaradan ayaa horey u soo bandhigi jiray muuqaalo muujinaya khataro iyo haliso badan. qaar ka mid ah muuqaalada noocan ah waxaa baraha bulshada looga raadiyaa hal shay oo ah attention. dadka muuqaalada noocan ah sameeya waxay raadinayaan ayaa ah in ay helaan likes, followers iyo in muuqaaladoodu noqdaan viral. laakiin dhibaatadu waxa ay bilaabataa markii qofku uu u maleeyo in noloshiisu ay ka qiimo yar tahay hal muuqaal oo uu internetka ku faafinayo. waxaa laga yaabaa in muuqaalka aad maanta geliso uu helo 100,000 oo views ah, laakiin haddii aad naftaada ama qof kale khatar geliso muxuu viewsku kuu tari doonaa? khabiir ku takhasusay cilmi nafsiga internetka ayaa sidoo kale sheegay in jawiga online-ka uu kordhin karo rabitaanka qofku inuu sameeyo waxyaabo khatar ah si uu u helo dareenka dadka. laakiin su'aasha weli taagan ayaa ah yaa mas'uul ka ah qofka muuqaalada sameynaya? ma saaxiibadiisa? ma baraha bulshada? guntii iyo gunaanadkii sheekadan waxa ayna baraysaa casharo aad u weyn. internetku wuxuu ku siin karaa caanimo hal maalin gudaheed, laakiin internetku noloshaada kuuma soo celin karo haddii aad hal khalad samayso. views waa la heli karaa mar kale, followersna waa la heli karaa mar kale, laakiin noloshaada haddii aad weyso dib uma soo laaban doonto. haddii aad ka heshay sheekadan la wadaag qof kale si fariintan ay u gaarto dad badan.